duqa magaalada muqdisho oo amarsiiyay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir maamul goboleedka galmudug oo shaacisay inay xiriirka u jartay dawladda federaalka Soomaaliya shir looga hadlayay isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika oo lagu qabtay magaalada muqdisho xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ergey cusub u soo magacaabay Soomaaliya wiil Soomaaliya oo marin dahabiya lagu gudoonsiiyay dalka Norway markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan halka aad warka ka daawaneysaan warbaahiye media fadlan subscribe saar channelka warbaahiye media duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir Cumar Usmaan Engineer Riiso ayaa faray waaxaha maamulka gobolka dawladda hoose xamar iyo gudoomiyaasha degmooyinka fulinta qodobadii iyo talooyinkii horumarineed ee ka soo baxay shirka tubta horumarinta gobolka banaadir ee shalay qabsoomay kaasoo uu goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Khayre iyo taliyayaasha ciidanka booliska iyo asluubta gudoomiyaha ayaa bogaadiyay dadaalka joogtada ah ee howlwadeennada gobolku ay ku xaqiijinayaan fayadhowrka iyo bilicda caasimadda oo bilihii la soo dhaafay isbedel weyn lagu sameeyay Engineer Riiso ayaa ku amaanay ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo taliskoodaba gacanta muuqata ay ka geysteen dib u dhiska taalooyinka qaranka oo ay ku tilmaamneed caasimadda sidoo kale Engineer Riiso iyo ku-xigeenadiisa ayaa la wadaagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda howlaha socda ay ka mid yihiin dib u dhiska qaar ka mid ah xarumaha degmooyinka wadooyinka halbowlaha waa isu socodka caasimadda nalaynta iyo dardargelinta barnaamijka isxilqaan ee dib loogu dhisayo taalooyinka tiyaatarka iyo madxafka qaranka dowlad goboleedka galmudug ayaa shaacisay inay joojisay wada shaqayntii iyo xiriirkii kala dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii maamulka ay ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya faragelin joogto ah war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka galmudug ayaa lagu eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya waxaana maamulka ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadi doonto mas'uuliyadda wixii qalalaasa ah ee ka dhacay deegaanada hoos yimaada maamul goboleedka galmudug ayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa wakiil cusub u soo magacaabay Soomaaliya kadib muddo 6 bilood ah oo xilkaasi u banaanaa wakiilka cusub ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa loo magacaabay James Swan oo ah diblomaasi Mareykan ah oo ka soo shaqeeyay dalal badan oo Afrikaan ah isla markaana hore u soo noqday ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan Afrika wakiilka cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa dalkiisa Mareykanka safiir uga soo noqday dalalka DRC iyo Djibouti waxaana uu bedelayaa wakiilkii hore ee Nicholas Haysom oo dowladda Soomaaliya dalka ka ciirisay markii ay ku eedeysay inuu u gafay qarannimada Soomaaliya xiriirka dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa xumaaday kadib eedidii wakiilkii hore ee Mr Haysom waxayna xogayaha guud ee qaramada midoobay ku qaadatay muddo 6 bil ah inuu dib u soo magacaabo wakiil cusub wuxuuna markaan u soo xilay diblomaasi ka soo jeeda dalka ugu weyn dunida oo aanay dowladda Soomaaliya isku dayi karin inay ka irido dalka ama ka hor timaado ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta gudoomiyay shir looga hadlayay isdhexgalka dhaqaale ee ganacsiga geeska Afrika shirka oo ka qayb galeen wasiiro ka mid ah xukuumadda ayaa looga dooday sida Soomaaliya ay u diyaarin karto mashaariic dalka faa'iido u leh dalalka geeska Afrikana ay ka faa'iideysan karaan maadaama uu jiro dadaal xoogan oo la doonayo in dalalku ay ka wada faa'iideysan karaan isdhexgalka ganacsi iyo dhaqaalaha kulanka ayaa qayb ka ah diyaar garow loogu jiro shir ay yeelan doonaan wadamada geeska Afrika oo lagu soo bandhigayo mashaariic dalalku ay ku soo diyaarinayaan faa'iidada u leh dhammaan bulshada geeska Afrika wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Jamaal Maxamed Xasan oo qayb ka ah wasiiradii shirka ka qayb galay ayaa sheegay in looga tashaday qorshaha ugu habboon ee Soomaaliya uga faa'iideysan karto isdhexgalka wasiiradana la faray inay ka fakaraan mashaariicda ugu muhiimsan ee lagu soo bandhigayo shirka looga hadlayo isdhexgalka ee dalalka geeska Afrika Maxamed Xuseen Diirshe oo ah wiil Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway ayaa ku guuleystay abaalmarin muhiim ah taasoo qaranka Norway ku maamuuso shakhsiyaadka howlaha muhiimka ah u qabta dalkaasi wiilka Soomaaliga oo ah 20 jir ayaa sanadii hore bishii December badbaadiyay wiil 8 jir ah kadib markii uu dab qabsaday gurigoodii saqadii dhexe ee habeenimo kaasoo dhimasho qarka u saarnaa Maxamed ayaa sida warbaahinta dalka Norway ee qortay loo aqoonsaday geesigii 15aad ee abaalmarinta noocan oo ah kor guuleystay abid tan iyo markii la aasaasay waxaana uu noqonayaa ruuxii ugu horeeyay oo asalkiisu ka soo jeeda
waasijigiisa ka soo jeeda dal kale oo abaalmarinta ciinkaasi hela. Abaalmarintan oo loo yaqaano Kangias ayaa ah mid dahab ah. Telefishinka NRK ee qaranka Norway ayaa baahiyay in Maxamed Xuseen Diirshe uu muujiyay geesinimo aad u yaab badan kadib markii uu ogaaday in wiil yar looga soo cararay gurigoodii oo gubanaya iyo heladiisii oo ay aad uga walwalayeen wiilka dabka qabsaday. Dhacdadan oo aad uga yaabisay bulshada Norway ayaa ku soo aadaysa xilli ay warbaahinta dalka Norway ka qoraysay bulshada Soomaaliyeed warbixino aan fiicneyn oo ku sifeysanays in Soomaalidu tahay jaaliyad aan ku fiicneyn isdhexgalka shaqada iyo waxbarashada. Waxayna tani noqonaysaa mid soo jiidata indhaha bulshada Norwejiyaanka ah kana bixisa Soomaalida muuqaal wanaagsan oo ka duwan kii hore. halka aad warkan ka daawanaysaan waa warbaahiya media. fadlan subscribe saar channel